بسم الله الرحمن الرحيم السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتكم من كل خير أدبان إني سلامي ولا الله قالي قيمة إيو قدرين تبضن مهل كستو آد جوكتين دمانتين أدبان إني سلامي وحرجينها إن أدفعنتين أو أدنبتين أدبان وعن هاي فيديو يكولي وحو دارين هاي وحن ربائنا حقا أنا وحن بليديو ويبتغي SSC خاتمو وهذا يسكو بدشي وقوي بري همبليو همبليو أيان لاهي كن يكوجر كل ورا بتيجي ويا نيجا أد بنا جو فرح سنة هاي هذا ما أنت جوج لها ودن كنا ما كقيب جيل لها حقيقة ما كقيب جيل لها وياها السياسة ده أدونك واصلة ويا ما أنا بميل بجوكتها سياسة سيدي دب ومعلم به سيدا أواج وبريوه مركا أد بنا جو فرح سنة هاي هاي أبتغي أي شان دولة قبولات عصب يعلن عصب وككوبان صدح أفر مذب واستوابية على كبر كيسان جمهورية جيبوتي مركا همبليا واني لهاي قوليستا هراء الصعدة دولة قبولات كي نانا الله كديك دولة قبولات بركيسان وبركيسان وأمد مداية كبركيسان وأمد جمعية كبركيسان وأمد الصوماليات meel kasta ay joogtaba ay ku soo hirato oo iskugu imato oo ku wada qaybsato oo wax ku wada cunto sida agoon Korea oo dhan agoon Korea jamhuuriyadda Djibouti jamhuuriyadda barakeysan xaqiiqatan waa agoon Korea weeyaan cid kasta korisay cid kasta wax la soo qabatay cid kasta soo barbaarisay in kasta oo ayna helin abaalkii ay lahayd Djibouti may helin laakiin qof kasta oo qalbi saliima leh oo maskaxdiisa iyo aqligiisa iyo qalbigiisa iyo ay madaxiisuna uu joogo uu qabaa uu og yahay in ay Djibouti tahay agoon Korea in cid kasta ay ku soo barbaartay oo ayna u eegin ayaa tahay xageed ka timiday xageed u dhalatay xageed ku dhalatay intaaba midba ayna eegin oo cid kasta soo barbaarisay inta dambena waad ka warqabtiin waxaan u arkaa inay tahay siyaasad inkasta oo ayna geyin waxa lagu sheegayo Djibouti ma geedo xaqiiqatan waxa lagu sheegayo waxa ay maxaa la yiraahdaa dadka qaarkood ma oran karno waa dadka oo dhan laakiin dadka qaarkood waxa ay ku hataaqayaan ay ku qaylinayaan Djibouti horta ma geedo wallahi ma geedo habas ahaato Djibouti waa hooy cid kastiba ay ku hooyato weeyaan laakiin siyaasaddu sideedaba walaal male laakiin dadku waa walaal waa ehel waa qaraabe waa sokeeye waa maxaa la yiraahdaa waa garab dadku waa sidaa weeyaan siyaasaddu waa lagu kala tagaa waa la isku diidaa laakiin walaaltinimo wada dhalasho wada jir wax wala qabsi intaas iyada laguma kala tago oo siyaasaddu waqti bay socotaa oo la rogrogaa markay dhamaato dadku sideedii bay noqon laakiin walaalka lagu bedeli maayo haddii aad adigu aad ku hataaqaysid aad ku qaylinaysid inaad cadowga jiritaanka walaalka aan rabin inaad maxaa la yiraahdaa aad ku qaylidid oo dhalo u tusaad iskaga dhigtid waxaad ogaataa walaalka buu noqon cadowguna cadow buu ahaan laakiin annaka ummadda Soomaaliyeed meeshay doontaa ha joogto ama Somaliland ha joogto ama Soomaaliya koonfur ha joogto ama ha joogto maxaa la yiraahdaa DDS
ama ha joogto NFD intuba waa dad walaal noo ah intuna walaal bay isku wada yihiin xaqiiqatan laakiin cid kastaba waxay leedahay qadiyad u gaara anu reerkayga markaan ka hadla qadiyad buu leeyahay reerkayga qadiyadda reerkaygana dee kama kaftamayo qof kastina waa tabtaa weeyaan habase ahaato walaaltinimadu marnaaba iyado halkaygii bay ooli halkaygii ayay ooli agoon koriya unbay ahaani ahey agoon koriya unbay ahaan in badan baa lagu soo ceeshay agooma badan ay soo korisay dad badan ay soo gacan qabatay dad badan oo maxaa la yidhaahdaa oo faqri ah ka samaystay dhaqaale dad badan oo maxaa la yidhaahdaa agoon ahaa ku kaalin galay oo kaga baxay agoonnimadii oo ku weynaaday in badan oo caamo ahayd ayaa wax ku baratay kuwii baa maantana maxaa la yidhaahdaa ku qaylinaya oo miidiyaha la fadhiya inkastoo dee miidiyaha waddanna lagama dhiso waddanna lagama baabi'iyo waddanna lagama dhiso waddanna lagama baabi'iyo kuwii ayaa maanta ku leh xabadda aan ka tuuro low yacabte madaxtooyada ayuu toos u soo galay aqliyaddaas anuma odhan karo waa aqliyad dajisan waa aqli caafimaad qaba waa aqli nadiifa ma odhan karo laakiin anu waxaan odhan karaa waa aqli caadifaysan oo caadifa ku jirto caadifada sideedana waxna ma soo biiriso wax adi ay kaa guysan maahine cidda kale waxba ma yeesho marka waxaan leeyahay jamhuuriyadda Jabuuti ha noolaato ummadda Soomaaliyeed ha noolaadaan geeska Afrika nabad allaha maxaa la yidhaahdaa ku dabaalo inkastoo la isku xabado urursanayo way xaaladdu adduunka oo dhan baa isbedelaya waxayna ku socotaa 20 sano 30 sano 50 sano 60 sano ee soo socda qaabka loo noolaan doono ayaa hadda qormaya laba mid baad noqon adigu inaad maxaa la yidhaahdaa lagugu qoro iyo in lagaa qorto bye